koonkan aadmiga jooga qof kasta kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato halla boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan si aad u hesho xubinta kalamaan ee ka baxda maalin kasta radio kulmiye fadlan subscribe saar janalkan keenin ودع يا رمضان مرحب يا كلمان 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 مرحب يا كلمان مرحب يا كلمان والرمضان وصور دافني وحن جوكنا الله ما انت انت iyo ciida wanaagsan ilaahaygi nasiiyay asaga ku abaale ayahaatan imaanta si wanaagsan u ciida wareer kalmaanow hadda miyaad soo kacdeen maanta waa maalintii saddexaad ciide wadooyinka ma iga xirmay war maalintaada labaad ma aqaan anigu bildhan ma aanan quraacan war quraacaad sheegaysaa anigu bildhan qadama arag war bishaas waajib ayaan ku heede mid dawladda ayaan ku amartay war nimayow ilaahu aan wasiirkooda soonkii waa ku celisna dhihin aro ani waaba kula yaabanaya qashkii imtixaanka maasku diidayne war heedahaya bishii daa'inna siiyo dembi dhaafka ahayd daraaddeed kalamaan markii aad demiseen haddii aad dibirte oo calooshii gaadhay dembiil misle dood kalamaana dawadiinnu ahayd hadda maanta durduurta dadku way idin maqlaane war ma haysaane imtixaankii dawladda ee qishkiisa la helay raggii bixii baa magacyadooda la helay waxayna kala yihiin master Facebook kabtan WhatsApp engineer Instagram general Twitter laba xidig la imo tarkaas sare PDF dhammaantoodna xarig min 5 maalmood ah oo lagu xukumi lahaa bay ka fagteen war hadda dawladdu meeshii laga rabay dambiilayaasha internetka inay xirto hal wiil oo wariyaha soo xirtay intii imtixaanku socday war nimaya war ma haysin intuu soonka socday waxa igu yaabadnay idaacadda kulmiye markan aan furon idaacadda shitaba waxay iga horkeenaysay dibiriya weyne waxaan ismoodaa aniga inay igu wado talow dadkii ma isgargaareen oo ma isu kaalmeeyeen war adiga maahan dibirada la sheegayaa cabdiqani idaacaddu la hadlaysay war qof kastoo dibiray la hadlaysay dadka hawaalin wariyaa war intaan farxaan ka ahayn qof aan afurka dibirin ma jiro aro ani saanka ma dibirina ad mishaarida ma iska badisayne wareedhahay ramadaankii iyo intaad maqnaydeen baad ku weyraxdeene siyaasadda war kama haysaane khilaafkii maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe waa tii garoowa la tegey waxbana waataysa ka naasacadaan kabacdina xuskii dhallinyarada madaxweynuhu waa tuuyirgel mudug daawaan u qorray waana qaadan weyday kadibna waa kii xeef hadlay xiriirkana waa kii jaray arrintu meel adagay ka deganaysa markii iigu dambaysay war maxaa la hayaa war madaxweyne xaaf wuxuu yidhi cudurka uu nagu sheegay madaxweynuhu waa fayras yar oo asagu nagu soo afuufay cudurkii weynaana dawladdu ag yaallaa war madaxweyne xaaf kaniini qasab laguma siin karee maa tartiib la siiye war abdheed ma tihiine markii ugu dambaysa madaxweyne xaaf madaxda maamul goboleedyadu isugu yeeray dhuusamareeb war adikan dhax ka dhaxsane madaxweyne asayid sheekh axmed dhuxul wuxuu yidhi qaacida aan shabaab ka diidnay filla soomaaliya kama yeelayno war ma haysaane dalalkii east africa oo dariska aanu ahayn waa soo durkayaane dad miyaanan ahayn daandaansi badnaase war adiga laftaada war haynine kenya intaan soomanayn waa naga faa'iidaysatay waxayna iska soo daba saaraysay culaysyada siyaasadeed oo ay soomaaliya ku hayso etoobiyaan la yaabayo qariiradda caalamkaba waa naga saartay marka waxaan la yaabanahay dawladda soomaaliya ilaa hadda hal waroo lagu qanca kama soo saarin markii ugu dambaysana madaxweynaha soomaaliya etoobiya beer ka falanayay beertu etoobiya hadday ku taallo madaxweynuhu la falay beertaas soomaaliya iskale ma ka yeelayno etoobiya geeska afrika innagaa ka talina miya aroosaas ma ihine waxay qariiradda nooga saartay badla'aanta ay yihiin ay is-ogsoon yihiin ee badda ay naga rabaan war nimanyahow aniga kenyan waxaan leeyahay bahari iyo yeetu siyo yaako etoobiyana
waxaan leeyahay yallam dhulkayga qaata miyaad leedahay noo sheeg waxaa tidhi mashtalate war ma haysaan anigaa war idinka dharjinaya jacbur gabaya anigoo yar baan caaqil ku ahaaye weligayba waa tirina qiinsheeka daba dheere balaan soo fataho maanta waad ku cayilaysaane ma mucaaradee dawlad waan yara dhaliilaaye runtoo laysku sheegaana waa cay fadeexadehe maalmahanna kuma sii jirto aamus baa timide ha yeeshee sabeen lama rabe weyscasilayaaye asagay u taallaa ninkii ciil dibirayaaye mana raba in laysoo xiro waan cabsanayaaye haddii lay qasbayana xabsiga weyska gelayaaye waana qodob dastuuriya inaan kala xishoonaye lax duqowday waa la arki jiray tanise waa nayle hasha inay gujaysay rabtaa caana beeshaduye ka ashada haddaad leedihiin mooyisay tahaye musuq maasuqana xoolaha loogu dawgalaye qarandumis inuu geelu yahay horeba loo sheegiye bangigana dameer baa u dhacay caada qaata ahe ukuntuna sacay nuugtay baa loo maxkamadayne digaaggii akoonnada jabsaday waa la soo xiraye imtixaanka waxarii fashilay boota lagu laaye riyihii fakaday baan mushaar cidina siinayne madaxdani xanaaqoodu waa sii darsanayaaye intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin waaba dheeraysay maxaa soo koobtay yaa arkan intees ka yimid war gobigaada waa xanaaqsanaayey madaxweyne xaaf miyaa kuu soo dhiibay war nin baa wuxuu yidhi dastuurkii haddii la haday imtixaankiina la haday war amaa doorashooyinkana la hadaa war doorasha wax la hada ka weyn 140 nin baa madaxweyne u sharaxanayaa xadi kara war wiilkii yaraaga fogaaneega hasaaka gabay yar buu keenay wuxuu yidhi jidadkiiyo dariiqyada xidhmoo maridda loo diidey dhagax iyo dhadhaabka waddada dadabka loo saaray dugsiyada ardada seegtay oon baran duruustiiba madaxdii hadday door bidoo nabad ku doonayso ama ay dilaagii ba'naa uga difaacayso adeeg dawladeed iyo dadkana dani ka raacayso dulmi maaha niman yahow shacbigu inay dul qaataane haddiise ay daf soo leeyihiin baalihii duurku oo soo dardarayaan waddada lana dabaalaynin dibna looga soo celin bulshada kii dukaansanayey daldaloolka meeshaas ku jira sow dembigu maaha war booliska kenya waxay xireenaa la yidhi doctor ibraahim faarax bursaliid oo ahay aqoon-yahan nairobi ku noolaa war miyaadan maqlin in 66 ruux oo siyaasiyiin soomaaliya dalkeeda ay ka mamnuucayso warniyow ani kenya waxaan kula talin lahaa intii hadhow qaramada midoobey u dacwoon lahayd hadda dulmiga ha joojisa war dardaarankaas kenya waxaan ugu dari lahay annaga soomaali baa nala yidhaahdaa dagaal waa bilaabi naqaana ee ma joojin naqaano wiiwini soomaali powerful siyo ni kikuyina jaluwa ar ullaaba ar maanaad nalada kiki ma kayate taarigu kiki wiiba soomaalida powerkeedu waa ka qabta